walaalihiin dagaalka ku jiray hortiin meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka Soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadawga ah wali ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xawli ah waxaan aaminsanahay ilaa hadda dhulka ballaaran oo faraha badan oo xuroobay muddadaas dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yiraa sababtoo ah xooggiina aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahayd waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xarihiinii tababarka Eritrea aad iigu muujiseen igana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiin iyo waalidkiin ah iyo dalkiina oo idinku baad ogtiin dalka inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo leh adduunka laga aqbalsan yahay oo noqdo intaas ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan u sinimaado maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasa dalkiina ah dawladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dawlad ah ayaa dawladdiina ah waa run askari caadi oo caalamka iyo dalalka meel kale joog wuxuu u baahnaayo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaaleeyo wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku radaa awood inuu haysto iyo noloshii u baahnaa intaba inuu haysto waxaan naga hortaagnay nimanka cadowga ah waa yeelo karnay horena waa u lahaa jirnay oo waana la garanayaayo aabbayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odowa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka General Biixi waa kana bidixdeeda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo maxaan ku radaa tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaan ku radaa hawdkaas inta 24 saac taagan ayagoo janana ah mas'uuliyiin ah xafiisyo air condition intay iska fariistaan awaamir muxuu raadi inta kor u qaad saas la yeelay meeshooda ka dhihi karay ayaa waxay door bideen inay inta baxaan ay muxuu ciidanka dhex istaagaan forontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas un baa muxuu ahay noqon doonta aniga baxay oo tagay forontiga iyo meesha ay taagan tahay madaxweynaha tahay xagee u socotaay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyay askarta iyo wax badan la yiri laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan Soomaaliyeed oo guuleystay oo diyaar ah inay halka ka sii wadaana guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii ugu farxadda badnayd ay ahayd ilaahay idankiisa idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idin la joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay daranada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahay iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku radaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idankiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaarada la isku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tagaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarno haddii alla yiraa maanta ma haysano diyaarada lagu cararaya
baska jidka lama hubo inuu guulaysan inuu geynayo in kale ma miinaa la qarxi doonto ma dhexdaa loo istaagi doonaa ma garanaysid maalin waxaasoo dhan intaan ka nimaado aad muxuu ahay xaafadaadii iyo magaaladaadii boqolaal kilomitr ama 1 kilomitr ha jirta aad bas intaad u raacdo adigoo shaki yar cabsi yar aanan qabin aad tegaysid waaye waxaan u taaganahay inaan soo celino oo aan helno haddii aan leeyahay waa bilaabatay already meelaha aanan basas lagu tegi jirnaa lagu tagaa meelaha aanan baabuur lagu tegi jirnaa maanta lagu tagaa dalka intiisa badan maanta qaybo badan oo kamid ah waa isu furmeen inta dhiman ciidankii iyo awooddii iyo xooggii caboonaa maxaan ku yidhahdaa intaasoo dhan maana la geeyo maana la qaado maan maxaan ku yidhahdaa aan tagno dalkeenni iyo dadkeenni maan u tagno inta aad lahaydeen maanta barihii lasoo dhaafa ayay qadarneed inaad soo gaartaan waa soo gaarteen hadda waxaa la rabaa in la idin hadiyo dadka dhan waxay soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas hadduu yimiday bas waaye shabaab waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay idinkaa marka waxaa idin jira xaggiina maxaa jira inaad ka dhabaysaan waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaabka hortiin waa kasii kala cararaya oo muxuu ahaay in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabka waa sii cararaa muxuu ahay ma suga berihii horaa dagaaladu ay aad u adkaayeen laakiin hadda waa dabakac laakiin cadowgu waa nool yahay hadduu cararay xataa cadowgu waa nool yahay waa joogaa wuu soo noqonayaa berri daba uu soo noqon karaa dadku ku dhex dhuuma kara wax kasoo samayn karaa nimankaas waa wiilasheennii waa walaalihiin waa la qalday nimanaa khalday qalad u sheegay qalad ka dhaadhiciyey waxaan rabnaa qaladka inay ka soo noqdaanaan rabnaa kuwii ka soo noqday waa soo dhoweynay waa nala joogaan qaarkood ciidanka amnigay ka tirsan yihiin qaarkood hay-adaha kale dowladday ku jiraan qaar guryahoodii iyo ganacsi waxbay iska galeen waa joogaan dembi ma laha dalkaanaa dalkiisi ah kii laakiin wixii baas maskaxda loogu shubay haysto ee dadka soomaaliya inay cadow u yihiin qabo oo inaanay diin lahayn ay gaalo yihiin qabo oo in la laayaahi ay maxaanku idhahdaa janno lagu gelaya qabo kaasi waa kaan sheegno waa cadow aan dhahno waa cadow cadowna iska qabasho uu leeyahay muxuu ahay walaalasho iyo kaashi ma laha marka dhalinyara mar kale soo dhowaada dalkiini iyo dadkiini oo aad iyo aad idin dhowrayo ku soo dhowaada ilaahay idankiis waad guulaysanaysaan waanad guulaysateen waad soo adkaysateen tababaro adag oo aan dad caadi aanay mari karin ayaad soo marteen waa ku adkaysateen waa mahadsantihiin waana guulaysanaysaan haddii alla yidhaah dowladda iyo shacabka eritrea na garab istaagay wakti aan garab istaagga u baahnayn xoog iyo xoolo iyo caqli badan idin geliyey halka ujeeddo ay ka lahaayeen keliyana ay ahayday inay soomaaliya kaalmeeyaan oo ay ka xorowdo cadowga aad iyo aad u ba'an ee dalkan iyo dadkiisa muddada dheer dullaystay mar walba iyo meer walboon taagannahayne inaan u mahad celinno annaan xusno magacooda ka caajisi mayna haddii aan la yidhaah aad iyo aadaa u mahadsantihiin sharaf badanaad leedihiin waa lidi dhowraayey xigmad nin abwaanaho soomaaliyeed uu yiriyaa jirto marka baadiyaha la jooga owraa la dhaansadaayo biyaha lagu doontaa sow maaha marka yacni asiga oo aad iyo aad ula waantamayo ayaa wuxuu yidhi ninka reer u dhaanshe ee dadku dhowrayeen ee dhexda owrkii kaga lumay reer dhammoo intaasoo qadsanaa ayaa biyo oo u doonay biyihii mugow owrkiia dhexda kaga lumayba maxaaba biyo u keenaaba owrkii iyo haamihii iyo wixii saarnaaya ayaa dhexda kaga lumay waa laga ducaystaa marka ilaahay nagama dhigaa la yidhaah ilaahay idankiis ilaaya haddana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magac iyo sharaf iyo haybad ayuu ka kasbaday ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhanna dagaalkan sharaf iyo haybad ay ka kasbatay laanna nimanka aad maqasheenoo macwiisley la yidhaahdo waa niman shacaba oo geelooda ilaashanayey cadowgaani ou karay markii ay arkeen ciidankii oo dhaqaaqayana daba kacay oo ku biiray oo yidhi waana kana anagana cadowga aan iska wada kicinno soomaalinimaa lagu kiciyohaa cadowga maanta waktigaa soo gaabanayo aad markay dadku sidaa uga qayb galaan ilaahay idankiis
waqtigii waa dhammaaday shabaab oo dalkan cabsida dadka ku haynay waa laga baxay cabsidaas inta dhiman inaan si guula ku dhammaystirno kadibna aan ilaashano dalka cadowgii waa baxay bas aaye guryaheenna aan kala aadna maaha cadow weligiisuu jira waana jira inaan ilaashano markaas haddana dalkaana laga raba oo aanu kuwii kalena aanay soo gelin kuwo kaloo nooc kale aanay imaanin oo aanay soo gelin ilaalman u taagnaanayna markaas hadda waa xorayn berrina waa ilaalmo haddii alla yidhaha dalkii iyo in la ilaaliyo iyo nidaamkii iyo dowladnimadii iyo wixii o dhan in la ilaaliyo u baahan dhallinyaro aad iyo aad soo dhowaada mar kale waa ku faraxsannahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ayay idinku faraxsan tahay muuqaalkiina markay ujeedana qeyro badan ku gelaysaa wiilashii saaxiibadiinnii aad ka soo tagteen oo tababarka yarkaa dheeraadiga u dhinnahay oo ayagana baahi hadda aan naga maqan oo aanan weli haysan ayaguna markay yimaadaan buuxi doona oo weli ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kale ayagana dhammaystiri doono kaabi doono buuxi doono waaye mar dhowna wayna soo raaci doonaan waa naga soo mid noqon doonaan guul iyo khayr aan idiin rajaynaya insha allahu maanta wixii ka dambeeya diyaar garow iyo dhaqaaqyada aan gelayna haddii aan layidhaha aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guulaystaan idin leeyahay mar kale soomaaliya guulaysta adikana